xarunta Diburaxma oo ah xarun dadka xanuunsan lagu daweeyo quraanka iyo dhirta ayaa u diyaar garoobaysa soo dhaweynta Sheekh Cabdiraxmaan Ibraahim Xasan oo ku magac dheer Sheekh Cabdiraxmaan Ceerigaabo. wadaadka ayaa ku soo caan baxay magaalada Ceerigaabo oo magaciisa la raaciyay waxaana dad badan oo Soomaali ah u aadaan inuu dhir iyo quraan ku daweeyo. xogayaha xarunta isku daweynta dhirta ee Diburaxma Dinax Maxamed Dinax ayaa saxaafadda u faahfaahiyay ujeedka imaatinka Sheekh Cabdiraxmaan ee magaalada Muqdisho iyo waxa uu qaban doono. Sheekh Cabdiraxmaan wax iska muuqdo bulshada u qabtay. Sheekh Cabdiraxmaan waxa uu shaqo ka bilaabay magaalada Kismaayo. waxa Ilaahay sabab uga dhigay in ka badan 500 oo ruux qaarkood la ildarnaa xanuunada nafsaaniga, xanuunada isha, xasadka, jinka, sixirka, dabeesha, umusubiyaanka. Sheekha waxa Ilaahay sabab uga dhigay in ka badan 500 oo ruux. Sheekha إن شاء الله تعالى waxaa loo keenay nin markii la keenay xarunta ama aan dhaho laba nin oo markii xarunta la keenay bareelo lagu waday laakiin bifadli Illaahi wa mannihi wa karamihi xarunta uga baxay lugahooda waxa kamid ah nin 3 sano hadalka uu ku dhaganaa ee aamusnaa hadalna laga waayay muddo 3 sano markii ay kaadi qabataan ishaariye Ilaahay kaadiya ay heeso marka farta ku fiiqay ninka Ilaahay sabab uga dhigay Sheekh Cabdiraxmaan hadalkiisa Ilaahay uu soo celiyay waxa kamid ahaa nin 5 sano walna ee katiinada ku xirnaa markii xarunta la keenayay sheekha waxa uu yiri katiinadaha laga furo quraana lagu akhriyay kitaabka Ilaahay markii lagu akhriyana caafimaadkiisa Ilaahay uu soo celiyay ortinta soo xiraa liiri dadku dhex galay dadkana waa laga garan waayay Sheekh Cabdiraxmaan Ceerigaabo runtii shaqadan waxa ugu horeeyay